daawade inta aan bilaabin ka hor haddii aad ka mid tahay asxaabta ku xidhan kanaalka fadlan like saar muuqaalka si ay noogu noqoto dhiirigelin haddii aad ku cusub tahayna subscribe saaro nagu soo biir gambaleelkana furo si aad ula socotid muuqaalada cusub السلام عليكم walaal goormadii aragtayaan ooyaya ninka magaciihuuna ay ku tiri cajiib dee wax kale aad u jeedaa markaad su'aasha iga jawaabto ayaan annataada kaaga jawaabayaa najax oo ka xun sida ay nimadal booday ay karkaraysaa waxay tidhaahdana ma garanayso waxba ma odhan karto dalkeedii ma aha gurigii hooyadeedna ma joogto wixii ku dhiba waa in aad liqdo ay beri hore isku qancisay maantase ilaa gamcaha ayaa gariiraya debinta hoose ayaa dhaqdhaqaaqaysa in ay wax tidhaahdo ayay rabtaa waxna kama soo baxayaan cay wixii ay taqaanay hoos ayay u higaadisay jidkii masjidka Qadaafi ayay cagta saartay midabka maradeeda oo la falgalay kacarada ay ku dul socoto ayay tallaabada dhufanaysaa dadkan baas ee aan la joogaa maxay ahaayeen waa qaar aan hadlin oo qolol kala degan iyo tan beenaleyda ah kambaalada la sheegaa ma sidana waa maxay dadkan kala wada jeeda waa in aan xasan la hadlo way wacday iyadoo aanu codkeedu deganayn walaal meeshan meel dhaanta maad haysaa xasanow maya wax dhibaato ah ma jiraan walaalo yaa haa yacni way igu yara fog tahay walaal haye walaal sida kale soo ma wacdid hayahuuna ayaa hadalkii lagu soo gabagabeeyey waqtigan la joogo galabta waxa ay u cadhoonaysaa laba qof nimco iyo kii waxanba baday ee najax may nimco iska ilow najax ayay aad ugu cadhoonaysaa najax uu farxaddii jacaylkeenu i siiyey waxaa ka badan xanuunka uu ii baday waa xanuun aan daawo lahayn kun go'aan ayaan kaa gaadhay kunkaba waan buriyaa qof miyaad ka weyn tahay maxaa tahay yaa xaq kuu siiyey in aad qof kale noloshiisa sidan u saamayso naftayda doqonsana miyaan kuu barooran uun ilaa aakhiro miyay kolba naagari igu wiirsan doqon weliba way i fahantay adiga ayaa dadka ii jebiyey haddii wax ku dhibaya lagu weydiiyo waad sheegi kartaa waxaasi waxa uu yahay iminka maxaan idhaahdaa nin yaroo najax la idhaahdo ayaan u ooyayaa akhas ma sidanaa ii dambaysay taag daranayaa yaan nabsiga ka galay haddaba ma cumarkii nasakha ahaabaa intaasoo inamadu ayaa i daba ordayey markaasaan adiga kuu dhuubtay waa arrin 7 mucjise adduunka ka mid ah 2 saacadood iyo 13 ilbiriqsi kadib ayay guriga soo gashay iyada oo aan cidna la hadlin ayay barteedii yarayd istuurtay cadhadii way ka yaraatay dareen kale ayaa soo beddelay way cidloonaysaa najaxna way tabaysaa si kastoo ay ugu cadhooto waxay og tahay in ay jeceshahay si kastoo ay u fogayso inta ay soo dhowayso ayaa ka badan qalbigeeda ayuu iska haystaa inuu sii daayana ma rabo runta fiicane iyada ayaa ku dhegan ma aha qof la sii daayo isagu waa intii iyada ka dhinnayd intiina waxaa qaadatay saaxiibadeed hoodo talow hoodo ma wacaa maxaan ku idhaahdaa iga daa ma rabo in aan ka qaso sheekada ay waddo kolley isaga ayay la hadlaysaa saacadda waa qof nasiib leh bes haddaba maxaan uga fikirayaa hooda maxaan wakhti iyo tamar ugu bixinayaa ninkaygii ayay haysataa naftaydana ma rabo in aan ugu daro laakiin talow maxay iminka ku leedahay isaga way isrogtay hurdo aan iman doonin ayay isku diyaarisay iftiinka waxa ay ka doorbidaysaa in ay indhaha isku hayso taasi waxa ay u fududaynaysaa in ay sii wadato riyadeeda hawada qolka dhex taagan ayay kolba qayb qaadanaysaa iyada iyo furaashka ayaan la kala garan jidhkeedu waa shayga keliyaha ee jooga sariirta dusheeda halkaas ayay isaga uga baaqaysaa maskaxdeeda ayaa ku soo celcelinaysa ereyadii Saado Cali ay ku looqin jirtay ruux ka maqan yahay hurdadu ku reemiyaa riyo waali badana 3 maalmood ayaa laga joogaa welise wax jawaab ah kama hayso xasan markii ay guriga soo gashay galabtaas ayay maqashay codka nimco haye walaal sahra hoodana igu salaan intaas ayaa dhagaheeda ku soo duushay way hakatay daaradda ayay istaagtay way u qaadan weyday masahraha iyo hooda ay la hadlaysay mise waa kuwa kale goormay isbarteen maxay ka wada hadlayeen talow ma xasan baa isbaray weydiimo bilaa jawaabaha ayay soo daadisay fikirka ayay ku dheeraatay nimco hadalkii dhammaysay ayaa qolka soo baxday waa la isku naxay midba dhan aanu u socon ayuu u dhaqaaqay 3 maalmood ee u dambeeyey xidhiidhkoodu waa uu istaagay wax hadal ahi ma uu dhex marin mid waliba dhankeeda ayay afka u buuraysay shandadii ayay dhulka dhigatay iyada oo dhibsanaysa sidan ay nolosheedu tahay ayay wax yar
taagnida ku qallishay. Nimco ayaa qolka soo gashay, sariirteedii ayay ku soo fadhiisatay, dhankana way soo eegtay sidii qof hadal doonaya ayay dhaqaaqa badisay. Way bilowday su'aal gaaban ayay soo tuurtay. Mad cadhoonaysaa weli? Najax way u qaadan weyday su'aasha noocaas kama ay dhaxayn. Dhankeeda ayay weji fajacsan ku eegtay, afka ayay qaloocisay, waxayna u raacisay maxaan ka cadhoon lahaa. Way ka jeesatay oo shandadeedii isku mashquulisay. Nimco sidaa kuma joogayso, dan gaar ah ayay leedahay. Ina mari maanta meel baan ku tusayaaye. Muddo ayay ku qaadatay in uu hadalku u dhaadhaco. Markan iyada oo aan soo jeesan ayay u jawaabtay, waan daalanahay walaal, aan hadalka kaa biinay. Ina mari ayay ku tiri, maymu walaal madaxa xanuunaya ayay ku hadal celisay. Meel ku bogsiisa ayaan ku geynayaa kaalay ayay ugu jawaabtay. Sida aad tahay uun soo bax, kaalay meel sariirta dhaantaan ku soo tusayaaye. Nimco oo sidii hore ka furfuran iyo Najax oo sida caaga ah ayaa isdaba galay. Hadal badani kama dhaxeeyo. Jidkii weynaa ayay ku hagaageen. Bas ordaya ayaa u istaagay. 20 daqiiqo kadib waxa uu dhigay barxadda weyn ee basaska. Dhanka waqooyi bari ayay u dhaqaaqeen. Nimco ayaa hagaysa, Najaxna way iska socotaa. Way wada socdaan, waana kala socdaan. Jidka Nailka ayay kor u qaadeen iyaga oo garabka bidix ka maraya barxadda weyn ee Hotel Sharon. Jidka ku dheeraran beerta cagaaran ee Yusuf Lule ayay midig uga baydheen iyaga oo ku dhacaya jidka Akakia Ave ee ku yaala dhismaha ay u socdaan. Najax oo la yaaban meesha loo wado in ay aamustana door bidaysa ayaa la hor joojiyay. Dhisme meel dhaadhaca ku yaala, ganjeelka weyn ee furan ayaa ku hagaya dhismaha cad ee jiingada cas. Waa hoteelka cuntada ee Mediterranean. Sida magaciisa ka muuqata waxaa iska leh Talyaani, gudihiisa waxa dhex jiifa cunooyin Talyaani ah oo kala duwan. Way ku dhaadhaceen. Albaabka hore waxaa taagan wiil ku labisan dhar cagaar ah oo isku joog ah. Dhoola cadayn ayuu kala hor yimiday. Su'aal ayuu si qabow u weydiiyey. Nimco ayaa siisay warbixin uu u baahnaa. Wuu horkacay. Way daba galeen. Najax waxay go'aansatay in ay aragto uun waxa dhacaya. Caag la wato ayay sidiisii noqotay. Waxa ay mareen luuq ilaysku ku yar yahay. Hoos ayay u dhaadhaceen. Dhexdeedana waxay istaageen barxad aad u ballaaran, si bilicsanna loogu xardhay maryo kala midaba ah. Kuraas iyo miisas ayaa madaxa iskula jira. Koonaha daaqada xiga ayaa la geeyey. Miis iyo 2 kursi ayaa la dul istaajiyey, waxaana loo sheegay in uu koodi yahay. Inankii ayaa ka dhaqaaqay, iyaguna way fadhiisteen. Nimco wejigeedu wuu furan yahay. Najaxna way is ururinaysaa. Su'aalo badan ayaa ku taagan Najax in ay wax weydiisana ma rabto. Saxan ballaaran ayaa dhexdooda la soo dhigay. Korkiisa waxaa buuxa khudaar kala kaan ah. 2 saxan oo yaryar oo aanay waxba ku jirin ayaa baashiisa yaala. Nimco ayaa mid qaadatay, aayar dul dhigatay qayb ka mid ah saladkii meesha yaalay. Najax oo aamusan ayaa sidiisi la mid ah yeeshay. Markaas ayay Nimco bilowday hadalkan, waxaan hubaa in aad u soo amban doonto meeshan. Indhaheeda ayay eegtay, jawaabna way ka weyday. Way sii wadatay, dadka isjecel ayaa yimaada halkan, bal sidaa u eego dadka meesha fadhiya. Najax oo aan madaxa dhaqaajin ayaa hoos u tiri, imise nin baa ku keenay halkan? Cuntadan waan inoo dalbay ayay tiri. Waa cunto Talyaani ah, biiza iyo waxyaabo kale weeyaan, waad ka heli doontaa. Way u jooqi weyday. Markii ay saladkii 2 jeer afka gelisay ayay Nimco bedeshay mawduucii. Eeg walaal, way jirtaa in aynu maalintii dhoweyn si aan qumanayn u wada hadalnay. Waxaan dareemayaa in aan si kulul kuugu jawaabay. Runtii igama yahayn xumaan, xaalad xun ayaan markaa ku jiray. Markaas baan maqlay in walaalkay dhakhtar loo qaaday, qalliin beerka ahna lagu samaynayo. Waan warwarsanaa. Adna su'aal xasaasi ah ayaad i weydiisay. Koob biyo oo afka saartay, haddana way sii wadatay. Marka horta waan ka raali gelinayaa dhacdadii maalintii dhoweyd. Maan jeclayn inaan sidaa kula hadlo. Cunto ay afka ku haysay ayay degdeg u liqday. Sacabka ayay afka marisay. Waxaanay markii u horreysay soo eegtay wejigeeda. Dib ma laha walaal, raali waan ahay. Aniguba waxaana faarahayga ahayn ayaan isku galay. Adna raali ahaw ayay ku tiri Najax. Way is eegeen, isku dhoola cadeeyeen. Markii u horreysay ayay si niyad wada furan u wada hadleen. Oo walaal, maxaa walaalkaa helay ayay tiri. Su'aasha iyo cuntada la sido ayaa hal mar soo wada gaadhay miiska. Way kala aamuseen. Saxni ay biisa ku waran tahay ayaa horteeda la dhigay. Waxaa la socday saxni kale oo baasta dhuudhuubani dul duulan tahay. Najax oo indhuhu ka soo dhici gaadheen ayaa su'aashiis ka ilowday. Walaal, baryahaaba wuu xanuunsanayo. Waxaa la ii sheegay in Hindiya la rabo in loo qaado. Najax waxay ku mashquushay cantuuga ay afka dhex ciyaarsiinayso. Waxaa shaki kaga jira in ay jawaabta maqlaysay. 20 daqiiqo kadib ayaa loo keenay cunno kale oo fudud, iyadoo oo aan weli isweydiin meesha ay ku ridayso. Ayay Najax markiiba isdhaafisay. Markii ay meesha soo gashay, imika ayay in badan ka culus tahay. Kaftan iyo qosol badan kadib, imika waxay dareemayaan in ay isku laab xaran yihiin, waxna isweydiin karaan.
najax ayaa bilowday wixii uu kii dhinnaa ii sheegay madhabbaa faduuliyad baan ahee hayla yaabine 2 sano ka hor ayay ahayd ayay tiri markaas ayuunbaan dhameeyey jaamacadda Camuud Axmed ina la idhaahdo ayaanu wada sheekaysan jirnay isku fasal ayaynu ahayn wallahi qof aad u wanaagsan ayuu ahaaye si fiican ayaanu isku fahanay sidaas annagoo isku ah jaamacadiina dhamaynay ayaanu guur soo hadal qaadnay shaqo uu meel ka raajicinayay ayuu markaas sugayay waxa uu ii sheegay in uu rabo in aan xaaskiisa noqdo balse aan waqti yar siiyo qiyaastii 1 sano in aan sugo waan ogaa inuu jecel yahay markaa waan ka ogolaaday sanad wax weyn ma aha way aamustay najax oo aan nuuxsanayn ayaa indhaha uun ku dhowraysa maalin salaasa ah galab ayay ahayd markaasuun casar laga soo baxay sidii aabbo caadada u ahayd waxa uu ku fadhiyey kursigiisii caddaa ee bannaanka yaalay halkaas ayuu maalin kasta fadhiisan jiray dadkuna way yaqaaneen maalintaas dad badan ayaa meesha joogay waxaa ka mid ahaa kan iminka kula dhigtay jaamacadda hooyadii markaas uunbaan ka soo noqday jaamacadda cod dheer ayuu igu qaabilay farxad ayaa ka muuqatay wejigiisa waxa uu sare u qaaday in uu isiinayo saaxiibkii oo ingiriiska ka imanaya birina dalka imanaya weliba naxdin ay laabtu i xanuunsatay